kadib weerarkii 19 Sebteembar sanadkii 2001 lagu qaaday Mareykanka, sarkaal sare oo ka tirsan waaxda sirdoonka ee dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Gary Shurwan ayaa soo galay xafiiskiisa nin madax u ah sarkaalkaasi, waxaana lagu amray inuu soo qabto Osama bin Laden, hogaamiyihii hore ee Al-Qaacida. Shurwan waxaa lagu amray inuu soo qabto Osama bin Laden soona dilo iyo inuu madaxiisa u keeno islamarkaasina saduuq ku soo rido. sidoo kale weeraradaasi kadib waxaa si weyn loo doondoonaya Ayman al-Zawahiri oo ahaa ku-xigeenkii Osama iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda Al-Qaacida. maalmo gudahood Shurwan iyo koox ka mid ah saraakiisha dalka militariga ayaa markii ugu horeysay gaadhay Afghanistan, waxayna haysteen oo keliya telefoonada satellite-ka iyo sidoo kale malaayiin dollar oo lacagta caddaanka ah si sahlan haba ay ku weerari karaan saraakiisha sarsare ee kooxda Al-Qaacida. toddobaadyo kadib 7 bishii Oktoobar, Mareykanka ayaa bilaabay duulaanka ka dhana kooxda Taliban ee Afghanistan, kaasi oo horseeday dagaal socday ku dhowaad 20 sano isla markaasina uu soo afmeermay bishii Agoosto 2021. Osama bin Laden ayaa la dilay sanadkii 2011, balse waxay qaadatay 10 sano oo kale in la dano Ayman al-Zawahiri. maalin kadib markii diyaaradda Ronis ay Kaabul ku dishay ninkii xilka kala wareegay Osama, Ayman al-Zawahiri Shurwan waxa uu dhintay isagoo 80 jir sida la sheegay. waxa uu dhintay kadib markuu madaxa dhiig kaga furmay. dhimashada Osama kadib agaasimaha CID-da William Burns ayaa ku ammaanay Shurwan inuu ahaa nin xariif ah iyo dhiirigeliye sarkaal kasta oo ka shaqeeya hay'adda sirdoonka ee Mareykanka. in ka badan 20 sano uu ka shaqeynayay Afghanistan iyo doorkii uu ka soo qaatay hay'adda sirdoonka. Shurwan wuxuu matalayay hay'adeena. William wuxuu intaasi sii raaciyay islamarkaasina uu ku daray, weligay ma ilaawi doono dadaalkiisa, daacadnimadiisa iyo dulqaadkiisa. Shurwan waxa uu CID-da u ahaa madaxa saldhigga Afghanistan iyo Pakistan sanadeedii 1980 ilaa 1990. saraakiil ka tirsan sirdoonka CID-da ee dalka Mareykanka oo saarnaa diyaaradii dagaal ee sanadkii 2001 gudaha u gashay Afghanistan. Taliban waa ay joogeen halkaasi. qof wali waa ogaa inay geysanayaan xadgudubyo ka dhana xuquuqul insaanka, iyo waxa ay go'aamiyeen inay dowladdu si xun ula dhaqanto dadka ayaa yidhi, laakiin run ahaantii ma jiro qof Washington jooga oo daneynayay. sanadkii 1996 si kastaba ahaatee, Shurwan waxa uu yidhi xaaladdu waa isbeddeltay kadib markii sirdoonka dalka Mareykanku ay bilaabeen inay diiradda saaraan dhaqdhaqaaqyada Osama bin Laden oo mujaahid caan ahaa xilligaasi, islamarkaasina mujaahid horkacaya dagaal jabhadeed oo ka dhana midowgii Sofiyeed ee sanadihii 1980. Shurwan waxa uu sameeyey qayb yar oo ka mid ah islamarkaasina ka tirsan xarunta la dagaalanka argagixisada CID-da, kuwaasi oo ka digay halista wadaadkani u dhashay Sacuudiga. Shurwan isla markiiba waxa uu bilaabay inuu xiriir la sameeyo taliyaashiisii Afghanistan oo garanayo waqtigii uu gobolka joogay. Shurwan iyo CID-du waxay si isku daba joog isu dayeen inay dilaan ama ay soo qabtaan bin Laden, iyadoo qorshuhu ahaa in weeraro gaadmaha lagu qaado kolonyo uu la socday iyo in lagu weeraro beertiisa oo ku taala koonfurta Afghanistan si loogu garaaco gantaalo ama loola beegsado qaraxyo. ugu dambeyn, bin Laden waa uu sii waday inuu qorsheeyo qaraxyadii lagu weerarayay safaaradaha Mareykanka ee Kenya iyo Tansaaniya. sanadkii 1998 waxa uu bishii Agoosto ee sanadkaasi ka badbaaday weerar culus oo lagu qaaday saldhiggii ay Al-Qaacida lahayd. 3 sano kadib, 19 afduubayaal oo ka tirsan Al-Qaacida ayaa bilaabay howlgalkii 2001 ee Afghanistan oo si rasmi ah loogu magac daray Operation Chowbeggar ayaa horseeday Shurwan iyo 7 kale oo Mareykan ah inay ku biiraan isbahaysigii waqooyiga, isbahaysigii kooxihii la dagaalamayay dowladdii Taliban ee ka talinaysa Afghanistan tan iyo 1996. markii uu helay amarkiisii, Shurwan oo markaa 59 jir ahaa ayaa shaqada bilaabay, waxaana uu ku jiray 11 maalmood oo ku saabsan barnaamij kala guurka CID-da ee shaqaalaha howlgabka ah. weligay ma filan in telefoon la igu sheegayo howlgalkan, ayaa uu yidhi sanado kadib. waxaanu u malaynayay inuu ahaa go-aankii ugu wanaagsanaa marka la eego xiriirka dheer aan la lahaa dadkaasi ka tirsanaa isbahaysigii waqooyiga. dhiiranaanta Shurwan waxaa ka dhawaajiyay Michael oo hore uga tirsanaan jiray CID-da,
ahaana nin ka soo dagaalamay Afghanistan. way aragnimadiisa Afghanistan ka hor Sebtembar 11keedii 2001 wuxuu aad muhiim ugu ahaa guusha halkaasi ka gaadhnay duulaanku hogaaminaya ayaa yiri Mr. Murray una sheegay BBC inta aan ka mid ahaa kooxdii ugu horeysay Afghanistan. wuxuu tusaale u ahaa fikirka hogaaminta xagga sare howlgalkii militariga duulaanka Afghanistan. guul weyn ayaanu ka gaadhnay waxaanaanu xukunka kaga tuurnay Taliban bishii Desembar 2001 laakiin shuurbartilmaameedkiisa ugu weyn waxa uu ahaa inaladan iyo shakhsiyaadka kale muhiimka ah ka tirsan Al-Qaacida sida Zawahiri oo marbaxsaday halka ay Taliban iska caabis sameeyeen oo ay la dagaalameen dagaal jabhadeed oo muddo dheer socday ayaa ku soo idlaaday fawdo markuu Mareykanku ka baxay Kaabul sanadkii hore. waraysi bixiyay shir intii uu noolaa waxa uu ku sheegay inuu ku guul dareystay Mareykanku sugidda amniga Afghanistan iyo qabashada cadawgiisa ugu weyn ay sabab tahay qayb weyn oo ka mid ah inay yaraato tirada CID iyo agabka military ee loo waciyay duulaankii Ciraaq. inkastoo ay hore u sheegeen maamulka Mareykanku in dowladda Ciraaq si uu loola xidhiidhinayo weeraradii sanadkaasi hore dhacay. Shur waxa uu sheegay inaanu weligiis humaysnayn inay Ciraaq ay wax ka og tahay weerar. ugu dambeyntii shaqada ayaa uu ka fadhiistay sanada kadib duulaankii Afghanistan sanadkii 2005 wuxuuna daabacay buug la magac baxay Firestone oo ku saabsan howlgalka. sanada kadib markuu shaqada ka fadhiistay wuxuu kooxaha u noqday bartilmaameed. sanadkii 2013 kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalantay gudaha dalka Soomaaliya ayaa barteeda Twitter-ka ku sheegtay in ninkan ay dishay arrintaas oo ku khasabtay saraakiil Amerikaan waan magacyadooda la sheegin inay ku tilmaamaan wax ma kama jiraan kuwaasoo la hadlay warbaahinta NBC.